ليفربول ilaa season-kii dhamaaday ilaa waqtigan waxa ay ka daba wareegaysaa saxiixii koobaad walow hadda loo arko mid gabagaba hase ahaatee Liverpool waxa ay dhamaadkii season-kan ilaa waqtigan diiradda saartay Anthony Gordon. Liverpool Newcastle ayay dalab u gudbisay kaasoo ay sheegtay Anthony Gordon inay ku doonayso 35 milyan. Newcastle dalabkii way ka soo jawaabtay oo waxay tiri 75 milyan iska bixiya. Liverpool 75 milyan oo gani oo cash ah way ku adkaatay hase ahaatee Liverpool waxay go'aansatay inay suuqa gasho dibna u kaadiso heshiiskan. waqti dheer kadib waxa soo hadlay Newcastle taasoo heshiiska hoos u soo dhigtay tirina 45 milyan oo gani iska bixiya. John Gomes daafaca Liverpoolna nasiya. Liverpool arintaas waxay u aragtaa mid faa'iido weyn soo kordhinaysa maadaama Anthony Gordon uu yahay nin khad dhexe iyo sidoo kale garab labadaba ka ciyaari kara. Anthony Gordon in 45 milyan iyo Gomes laga bixiyo ma u qalmaa haddii aan adiga ku weydiiyo. Haddaba dhammaantiin aad u mahadsantihiin.